aadamiga ah u leeyahay muhiimad weyn oo caafimaad jireed iyo mid maskaxiyanba leh. dhaqdhaqaaq la'aantuna waxay sababtaa xanuunno badan oo halis gelin kara nolosha qofka aadamiga ah. cayilka ayaa isagu ah xanuun faraba'an ku haya dunida, waxaana lagaga hortegi karaa cunno miisaaman oo caafimaad leh iyo dhaqdhaqaaq jireed oo isagu joogto ah. soomaalida dibadaha u soo baxday haddaba ma ku baraarugsan yihiin amuurtan ayaa su-aasha iman kartaa ay tahay. qaar ka mid a soomaalida deggan dalkan Holland oo aanu weydiinay in ay wax isboorti ah ama dhaqdhaqaaq ah sameeyaan ayaa jawaabtu noqotay mid walwal keeni karta. isboorti ilaa ay hadda ma sameeyo badanaa, laakiin waxaan sameeyaa fits wax la yiraahdo marmar. taasna waxa waaye in maraan dan leeyahay meel aadan, laakiin sports aan uma sameeyo. may wax sports ah oo joogto ah oo aan sameeyo ilaa hadda ma jiro. waxaan u sameyn waayay run ahaantii dhiirigelinta ama mataqaanaa wacdigelinta waxa loo yaqaana informationka xagga sportiska oo ummadeena Soomaalida aad ugu yar ama aniga xaggayga runtii aad ugu yar, kaasoo keentay in dadkii aysan isku dhiirigelin ama aysan ku dhaqaaqin. haddii qofka loo sheego sportiska macnihiisa ama faa'iidadiisa ama khasaaradiisa mid buu qaadan lahaa, uu door bidi lahaa, wuxuu oran lahaa ama sports baan qaadanaya ama waa iska daynayaa. runtii waxyaaba ugu weyn uu yahay hortaagan yani hadda aan dhihi karo ma laha, laakiin mar walba waxay ku xiran tahay xaaladda markaas yani oo aan yani ku jiro. laga yaaba xataa in mar in cays ka yimaada laga yaaba, yani iyadoo ay ku sii dheertaa yani nolosha kale mashquuleeda in noqdo laga yaaba, xilli shaqo laga yaaba inay kusoo aado. yani waa badan tahay sababaha yani noqon karo inaan sportska joogto aan ugu dhigo. kale waxaan u sameyn waayay horta fursadii aad u yar. teeda kale haddaan Soomaali nahay badanaaba dhaqankeena xoogaa waxaa u malaysaa inuu isboortiga uu aad maalan aan u fahamsanayn. waxaa jirta in isboortiga aan u haysano maalan in caruurta da'da yar inay sameeyaan ilaa qofka markuu 20 jir yahay, laakiin mar hadduu ka weynaado waxaas markuu sameynaa la yiraahdo macnaa in sida ciyaalka ma hadda u noqotay. marka isboortiga xoogaa waxaa aad noogu yar macnaa dhaqan ahaan inaanan fikrad fiican ama aan haysanin faa'iidooyinka uu leeyahay. inkastoo lagu tilmaamay in dhaqanka Soomaalidu ay isboortiga ama cayaaraha u xagliyaan dhinaca caruurta, haddana waxaa yar tirada ilmaha Soomaalida ah ee ay waalidiintoodu geeyaan meelaha ciyaaraha kala duwan lagu ciyaaro. imaan nuur iikar oo ka mid ah dadka isku taxaluujiyey inay amuurtan xal u helaan ayaanu weydiinay waxa kalifay in waalidiinta Soomaalidu caruurtooda aysan si joogto ah u geyn meelaha ay ciyaaraha kala duwan ku ciyaari karaan. runtii marka loo fiiriyo jinsiyadaha kale, Soomaalida aad ay ugu yar tahay inay ciyaalkooda iyo iyaga nafsad ahaantooda inay sport sameeyaan. sababaha ay Soomaalida intooda badan ciyaalka aysan u geynin waxaa ka mid ah, way badan tahay. maalan waxaa ka mid ah dhaqaalihii oon u saamaxaynin, islaantii oo ciyaal badan maalan oo hayso kan iskoolka geey kan ka soo celi, waqtiyadii oo ciriiri ka naqanayo, iyo dhaqaalihii oo lagu geyn lahaa sportiga iyo sii geynta iyo soo celintaba laftirkeeda iyadoo intaasi ku adag tahay. inkastoo ay waalidiinta iyo caruurta Soomaalidu ku yar yihiin goobaha lagu cayaaro cayaaraha kala duwan, waxaad ku arkaysaa waalidiin aan Soomaali ahayn oo caruurta ay dhaleen oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba la garab taagan dhiirigelin marka ay ciyaarayaan ciyaaraha kala duwan. Tony Slaughter iyo Rafael Chapi ayaa ka mid ah waalidiinta aan marnaba ka caajisin inay ilmahooda ku garab istaagaan ciyaaraha ay ciyaarayaan. My name is Rafael Chapi. I'm from Cameroon. Hallo, mijn naam is Teun Sluiter. And the father of Jonah and Anthony. Ja, ik ben vader van China. Zij is mijn dochter, voetbalt hier met de F2 mee in de Ster. Dan heb ik nog een jongetje, Jelle, en die gaat na de winterstop beginnen. I bring my children here every Wednesday and Saturday. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen gaan sporten omdat beweging erg belangrijk is voor kinderen. Kinderen groeien. Het is belangrijk dat het lichaam gezond blijft, dat ze ook gezond eten, maar ook veel... The footballer in the future, but them, that's the right thing to do when we are in a very strange environment as we find ourselves in Holland or anywhere else in Europe.
su-aashu waxay tahay sidee kor loogu qaadi karaa in ay waalidiinta Soomaalidu iyagana iyo welibana caruurtoodu ay ka dhex muuqdaan goobaha lagu cayaaro ciyaaraha kala duwan. waxaa loo baahan yahay in la sameeyo dhiirigelin iyo wacyigelin noola sheego macnaha isboortiga faa'iidada uu leeyahay. saanu ognahay qof waliba oo Soomaaliya wuxuu ku xiriiraa waxa loo yaqaan community, wuxuu ku xiriiraa saaxiibo, wuxuu ku xiriiraa iskuulo, wuxuu leeyahay maqaayado shaaha lagu cabo. in ummadii lagu dhiirigeliyo oo lagu wacdigeliyo lagu mashquuliyo sidii ay u sameyn lahaayeen sportiska. waxaa u baahan tahay oo kale inay heshid facility badan oo ku sahlaya information idna waxyaabo badan oo inaad ka ogaatid u baahan in sports aad samaysid. marka dadka saasaa lagu dhiirigeliyaa filaya information badan in dadka la siiyo loo sheego waxyaabaha sportska yani oo ay tahay in la sameeyo iyo in ay helaan yani gruubo oo motivation sameynayo oo raacayo sida macalin oo kale oo mar walba jimka u sameynayo haddii ay tahay jim la aado, haddii ay tahay orod macalin mar walba ordasiinayo oo la socdo yani iyo caafimaadkooda mar walba oo loo sheego la yiraahdo caafimaadkaaga maanta halaasoo maraya 2 kiilo ka dhacday 3 kiilo ka dhacday yani waxyaabahaas ayaa filaya in lagu dhiirigelin karo inay sportska dib. maadaama ay dhiirigelinta dadka lagu dhiirigelinayo iyo macluumaadka ay dadku u baahan yihiin ay muhiim tahay, ma jiraan ururo iyagu howlahaas qabta oo macluumaad isboorti iyo tasiilaadka Soomaalida ay u baahan yihiin u haya. ururka SBSS oo ka dhisan magaalada Den Haag ayaa qabta hawl dhinacaas ah sida uu noo sheegay Iimaan Ikar. waxaan qabanaa gaar ahaan ciyaalka iyo waalidiinta maalmo mucayan ah, maalan maalinta jimcaha oo kale iyo maalinta sabtida oo dadka waaweyn iyo ciyaalka yaryar waxay kala tagaan meel la yidhahdo Haag Sport Town oo aan xaafadda ka fogeyn. meeshaasay ku ciyaaraan ciyaaro kala duwan oo football ay ka mid tahay, basketball uu ka mid yahay. waxaa kaloo jirto maalinta axad oo kale zaal weyn oo asagana lagu qabto Oranje Plain, maalintaasi meeshaasaa jirto. waxaa kaloo jiro maalinta iyadana sabtida Octopus oo hooyooyinka iyo gabdhaha roron iyagana ay ku sameeyaan dhaqdhaqaaq oo tababar iyo macalin uu la joogo. waxaa kaloo intaas sii dhaaf siisan for example meel ay yiraahdaan Sparta Athletic oo runtii aan dadkan ku dhiirigelin inay maadaama Soomaalida ay jirkooda qaar ay khafiif yihiin inay atleetikada ka faa'iideystaan oo meeshasna introduction aan ku sameynay. intaasoo meel ayaa la tagaa. waxaa kaloo sii dheer tennis meel lagu ciyaaro oo iyadana breakpoint ay yiraahdaan, meeshaasna marmar ayaa introduction ahaan loo geeyaa ciyaalka oo mar walbaan tagnay xoogaa ay kusoo qaateen duruus. magaalada Den Haag waxaa ku yaala goobo badan oo isboortiga noocyadiisa kala duwan lagu cayaaro. goobahaas oo maalmaha kala duwanaad ku arkaysid waalidiin badan oo ilmahooda ula sii ordaya dhinaca goobahaasi ayaa waxa ay hayaan haddaba tasiilaad kala duwan oo waalidiinta iyo caruurtooduba anfacaya. xarumahaas waxaa ka mid ah Haag Sport Town oo iyagu ka dhisan xaafadda Schilderwijk ee magaalada Den Haag oo ah xaafad ay Soomaalidu ku badan tahay. inkastoo waalidiin badani aysan caruurtooda goobaha cayaaraha kala duwan lagu cayaaro aysan geen, ayaa haddana waxaa jira qaar yar oo amuurtaas ku baraarugsan. Cabdiqaadir Cumar Nuur oo isagu ah aabe dhinaca caruurtiisa geeya goobaha lagu cayaaro ciyaaraha karateega ayaa nooga waramay sababta uu ilmihiisa goobtaas u geeyo. waxaan u geeyaa runtii inay yani caafimaad ahaan isdhexgalka bulshada si dad kale u dhexgeli lahayn bulshadooda ama ay wax ula qaybsan lahayn dadka kale ee la nool yihiin, iyo inaysan macnaha banaanka aysan la yeelan contact ilmaha kale yani ama halaysan ama aysan banaanka u aadan ilmaha. Axmed Cabdiraxmaan Ziyo oo ragga isaga la da'da ama u da'dhow ee Soomaalida ahi ay u badan yihiin kuwa aan haba yaraatee wax dhaqdhaqaaq ah samayn ayaa isagu sameeya noocyo kala duwan oo isboortiga ah. aniga waxaan sameeyaa isboorti badan sida runta ah, laakiin waxaa muhiim i ah isboortiga tenniska ciyaara ilaa adiga muddo 40 sano ku dhow hadda waan ciyaaraa tenniska. wallahi isboortiga wuxuu leeyahay caafimaad uu leeyahay isboortiga, marka
يعني qofka bini'aadanka jirkiisa ku dhismayo caafimaadkiisa ku saacidayo qofka bini'aadanka markuu cuntada cuno wuxuu u baahan yahay inuu dhidido yani sportiga waxyaalo faa'iido badan buu leeyahay. mar haddii uu axmed ku baraarugay faa'iidada dhaqdhaqaaqa jirka uu u leeyahay bani aadamku, ma jiraan qaar isaga la mid ah ama ladda ah ee sidiisa oo kale ku baraarugsan faa'iidada ay ciyaaruhu leeyihiin. waqtigan xaadirka hadda ilmo yaryar oo meelo la geeyo oo cayaaro way jiraan, laakiin dad waaweyn oo sport sameynaya oo Soomaaliya ilaa hadda weli ma arag. mana u maleynaya inay jiraan, laanno aniga qudheeda waxa weyn nin oday ahay, odayaal Hollandeesa iyo odayaal kale la ciyaara waa u baahnaan lahaa hadday jiraan rag Soomaaliyeed oo sameynaya sport. anigu tennis kaliya ma sameeyo, waxaan tagaa meel fitnesskana waa tagaa. marka sida runta ah wiigo idil mashquula ahay 3 maalmood waxaan tagaa fitness, 2 maalmood oo jimcaha iyo axadana waxaan tagaa tennis anagoo group ah oo ilaa odayaal ah u badan ilaa wixii 40 sano ka weyn. marka aad iyo aadan runtii ugu faraxsanaan hadday jir lahayn odayaal iska daaya xataa kuwa aan odayaalna ahayn dhalinyaro ahayn oo wax sport sameyn hadday jir lahayn way fiicnaan lahayd. sida uu axmed sheegay, mar haddaanay jirin dadka asaagiisa ah ee isboortiga sameeya ee Soomaalida ah, maxay isaga la tahay sababta kaliftay amuurtaas? wallahi waxaan u maleynayaa in sportiga macnihiisa inayna fahmin, laanno adduunka sida la ogyahay in sportiga caafimaad uu leeyahay, muhiimad waxa inuu caafimaad leeyahay. marka interestna ma siiso Soomaalida, inta badan ma siiso. hadday u bataan waa dadkii hore oo balooni ciyaari jiray. sportiga dhanna waxay kusoo koobaan balooni hadday u bataan. mar haddii aan ogaanay baahida loo qabay isboortiga, waa maxay haddaba taladu? waxaan kula talin lahaa rag iyo dumarba in ay sportiga ay xoogga saaraan, laanno waddankan khaasatan hadda Yurubtan aan joogno waa dhul qaboob. marka cuntada la cuno maaragtay la seexdo ama telefisyon la hor fadhiisto waxa weeyaan wuxuu kugu saacidinayaa in cadiinta ama shaxamka waxay yiraahdaan ay ku saacidayso, dhiigaaga ma shaqeynayo. marka Soomaalida hadda inta badan waxay ku leeyihiin waxaan qabaa dhiig karaan qabaa, waxaan qabaa waxaasoo waxa keenaya waxa waaye sport la'aanta weyn. marka sport in la sameeyo, aniga sportigaasna waa sameeyaa, tennis waa ciyaara, fitness waa tagaa, meel dhahay xamaamka oo lagu dhiridayo waa tagaa. marka yani waxa soo waa loo baahan, korkaaga u baahan, jirkaaga u baahan. waad fahmaysaa inaad maaragtay qof bini aadan oo nool inaad tihiid. hataa hadda dadkan aan Soomaalida aan meelahan ku aragno ayagoo dhalinyaro ay hataa socodkii dhib ku yahay, markuu 2 tallaabsado uu maaragtay neefsanayo uu socon karin. waxyaalahaas waxa keenaya sport la'aanta weyn. marka sportku waa muhiim. sportiga waxa doonto cun, sport samee. xayaatada insaanka oo dhan baa wuxuu ku salaysan yahay sportiska. habeenkii inaad seexataa darabto inaad sport samaysaa, haddii aad doonto inaad caadayso waa inaad sport samaysaa, haddii aad doonto inaad kalooriyo iyo fat gubto waa inaad sport samaysaa, haddii aad doonto stresska inuu ku daayo waa inaad sport samaysaa, sida orodada, biskaleetiga iyo waxyaabaha la midka.